in badan ayaa isweydiisay sidee automation ama in shaqo loo tusi automatic ah oon u baahnayn interaction lagu samayn karaa Python. Hagaag waxaynu muuqaalkiina ku baranaynaa sida loo adeegsado moduleska OS iyo sys. waa cashir aad u xiiso badan ayaynu bilowno. ka hor intaanaan bilaabin laga yaabay in dad badan aysan fahamsanayn muhiimadda ay leedahay in shaqo la automate gareeyo khaasatan marka la joogo cyber security-ga. waxaynu tusaalahaan usoo qaban karnaa ka waran haddii aad rabto inaad fayliska kombiyuutarkaaga ka raadiso inay malwares ku jiraan. folder kasta iyo fayl kasta ma si gaar ah ayaad u dul tegaysaa oo u jeegaraynaysaa. taasi waa arrin aad u dhib badan waqti badanna inaga qaadanaysaa. ka war haddii aan rabno inay bedelno magacyada fayliska nagu jira folder laga yaabay inay yihiin 100 iyo wax ka badan oo faylis ah iyana waa shaqo dhib badan khaladaad badanna aynu samayn karno. ka waran haddii aan rabno inay backup ka qaadano xogaha nagu jira systemkeena maalin waliba iyana waa shaqo dhib badan maalmaha qaarna aynu ilaawi karno inaynu samayno backup. dhammaan caqabadahani waxaynu ku xallin karnaa inaynu ku samayno automation. muuqaalkiina waxaan ku qoran doonaa sida loo adeegsado labadan module ee kala ah OS iyo sys. okay haddaba waa maxay moduleka OS isla noo qabanaya. modulkan waa bridge-ka isku keen xiraya Python iyo operating systemka aynu adeegsanayno Linux, Windows iyo macOS. waxaanu Python u ogolaanayaa in lagu samayn karo shaqooyinka sida samaynta fayl cusub, isku beddelka ama tegista directories ama folders iyo inaynu xog ka soo ururi karno systemkaasi. waxaa modulka inoo automate garaynayaa shaqooyinka la xidhiidha fayliska iyo maamulidooda. intaas ma isla fahamnay. moduleka sys isna waa module aynu interaction kula samayn karno operating systemka. taasi waa naga caawinay in commands ku qori karno CMD-da ama command promptka kombiyuutarka inagoo adeegsanayno Python. okay haddaynu ku horeyno moduleka OS waxaynu ku samayn karnaa inaynu kala gudbino directories, samayn karno files cusub, sidoo kalena ilgaray karno kuwa horey nagu jiray iyo inaynu xog kala soo bixi karno systemkaasi sida inaynu qorno directory-ga aynu markaasi joogno ee script-ga nagu shaqaynayo. okay haddaba si aanu isticmaali karno modulkan waa inaynu ugu horeyn import soo dhahnaa. mar kasta oo Python module soo gelinayso waad ku qeexdaa xagga sare ka hor intaadan qorin codeska modulekaasi. kadibna waxaynu ogaan karnaa locationka ama directory-ga markaasi joogno. waxaan samaynaynaa variable aan ku kaydino directory-gan joogno. directory iyo folder waa isku mid. okay current directory equal os.get current working directory waa sidii Linux ee print working directory. koodkani waxaa inoo sheegayaa meesha aynu iminka joogno aan ku rangarayno script-geena. waana muhiim inaad ogaato meesha ay tahay inaad ku rangarayso script-ga. marar badan waxaa laga yaabaa inay ciladi kaa qabato rangaraynta fayl sababta ugu weyn ay tahay inaanu joogin meeshii saxda ahayd ee faylkaasi loogu talagalay inaad ku rangarayso ama waxaad rabtay inaad fayl ku safgarayso directory aan ahayn kana hadda joogtid. markaasna si aad u ogaato directory-ga hadda joogto waxaad qoraysaa current os.get current working directory. kadibna haddii aanu print garayno waxaan arki karnaa directory-gan joogno. waxaynu igana samayn karnaa directory cusub inagoo adeegsanayna moduleka OS. soo samaysan waxaad qoraysaa os.make directory kadibna magaca folderka halkani ku qor si la mid ah markaynu adeegsanay Linux. waxaynoo samaysmay folder leh magacan waa si dhaqso badan aynu folders u samayn karno. waxyaabaha sidoo kale ku samayn karno modulkan wax ka mid ah inaad aragto inta fayl iyo folder ah ee nagu samaysay directory. waxaynu qori karnaa os.list directory kadibna aynu print samayno. intama files ah ee nagu jira directory-gan aad ay u badan yihiin commands-ka aynu ku samayn karno modulkan OS. waxaanay gaarayaan boqolaal. listigan waxaa ku jira inta ugu muhiimsan ee laga yaabo inaad si joogta wada tato. linkii waxa uu yaallaa qaybta description-ka. waxaana muhiim ah inaad waqti geliso modulkan OS. okay moduleka sys waxaynu ku samayn karnaa automations inagoo adeegsanayna command line. waxyaabaha aynu ku samayn karno modulkan waxaa ka mid ah in xog dheeri ah ku darno script-geena markaynu Python ku rangarayno command line. tusaalaha aynu si fiican u fahmaynaa qodobkaasi. waxaynu sidoo kale modulkan sys ku samayn karnaa inaynu ku gaamino xilliga ay tahay in la joojiyo script soconaysay. okay marka ugu horeysa aynu import soo dhahno modulka sys kadibna waxaynu qori karnaa fariintan ka hor inta inaan xidhin script-ga. kadibna waxaynu qoraynaa sys.exit. waxaynu tan u adeegsan karnaa markay rabno in script-ga joojino sida haddii errors dhacaan oo kale ama qofka isticmaalaya dalbado in la joojiyo. waxaynu isla samayn karnaa command line argument oo ah inaynu xog dheeri ah u dari karno script hore noogu qoran. tusaale ahaan waxaynu qoraynaa print command line argument kadibna sys.argument vector oo sidaan u qormaya. argument vector waa list aan ku keenin doono waxyaabaha kale aynu ku dari doono script-ga. marka si aad qodobkan fahamto waa inaynu script-ga ku rangaraynaa terminalka. halkan ka soo fur terminalka kadibna waxaynu qoraynaa Python
magaca scriptigeena iyo xogta ay rabeen ku darno tusaale ahaan hello kadibna waxaan arki karnaa in xogtii nagu jirtay scriptiga lagu daray hello waxaan tani u adeegsan doonaa in dib ugu adeegsan karno codeiska inagoo ka maarmayna dib u qorno waxaan si fudud xog u gudbi karnaa scriptiga cashirkeena maanta intaas ayuu ka egyahay waxay noo soo socda project aad u xiiso badan oo aynu ku qaadan doono cashirkeena xiga taasi waa inay ku automate garayno shaqo dhammaanteen ay si maalinlaha ugu baahan nahay la soco lana wadaag asxaabtaada mahadsan